u baahannahay tarbiya tiro badan oo asalku ah mujaahada. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إلهي وحلي كوا حقيقة أددالة وجهاتما أن الطريق وقهن يا إله إليه سبحانه وتعالى. إذا نفت بني آدم كوا كرطة وحكوا ريبا لنا عقيدة في عن وحكوا ريبا لنا أعماش الصالحة وحسفي عنه كريبا لنا إن الله قد طمحي مجتمع يبي أفيعا ددونا أكسنين الله النورات ويا أصحاب طحون الشركة هدا الله نغطه قف عيب بدن هدا تراعده واردب متشر بدن هدا تراعده واردب متصلاة كتغا هدا تراعده واردب وين النقطات بيئة ضي environment كخوغو حيراني بيئة خير بيئة فيعا بيئة فيعا وحلقة فائدة ما لتعداد قدالة انتهي ولا شاذا كله أي نشيطة قفك بني آدم كي مركز طبعا ما في فرعونة مرمر بدر النفط عاجزته مدى شباجرته لكن ولا شاية في فرعوني مركي كل شوكته إذا قعنتك وغبان سهرك وغادسة ما أنت يدو داشر هذا قعنتك غبانية دادكو خير كويسكو قرقار سده إذا قفكو إنه مجالس الخير ويماده ما لها خير كاللوها يو حاضره دولك وناقا لوها يو تقو waxay noqonaysaa naftiisu inay korayso kobcayso wazaad waa sahay naftu ay u baahantay kaliya haddaad socoto waa daali laakiin haddaad haysato sahay ama gaadhi ku qaada ama waxaad sii cunto ama dayuurad ama waxaad fuusho socodku wuu kuu fududaanaya waxyaabaha socodkaa fudaydiya socod baad ku jirtaa in janno lagu socdo الصراط المستقيم oo janno taga waxa kuu fudaydinaya waxa weeyaan inaad dadka khayrka la raacdid majaalista khayrka lagu hayo inaad xaadirtid meelaha wanaagga laga sheegayo inaad joogtid waxa kuu fudaydinaya inaad adiguna isku daydo naftaada maalinle inaad ula dhaqantid haddaad dukaan haysato oo aad seexanayso fiidkii waxaa laga yaabaa qof waliba xisaabtiisu xidha maanta wixii laga iibsaday lacagtoo dhan buu tiriyaa dhan buu dhigaa waliba lacagtu kala saarsaara wixii boqol iyo konton iyo shan inba meel buu ku qoraa wuxuu qoraa wixii dayn maanta uu bixiyey iyo dadkii uu lacagta ku yeeshay oo dhan wixii uu lacag soo galay oo dhan si fiican buu u xisaabtamaa habeenkii wuxuu seexdaa markuu xisaabta xidho isagoo garanaya wuxuu faa'iiday wuxuu khasaaray waxa dayn uga maqan waxaasi oo dhan waxa aad xisaabinayso oo dhan waa raasamaalkii dunawiga ahaa bal ka warran raasamaalkaagii dhammaayay cimriga ahaana nolosha gebigeedaba waxaad ku leedahay waa sanadahan yar aad jirto ee 60 50 40 70 waa intaa raasamaalkaad haysataa hantida aad rogrogaysaa waa 70 sannadood ama waa 60 sannadood ama waa 50 sannadood kontonkii sano waa inay ku xisaabsanaadaan markaad caawa seexanaysa waa inaad tidhahdaa war 24 saacadood oo sannado yar ayaan haystay baa tagay 24 maxaan qabtay waa inaad isweydiisaa maanta maxaan qabtay 5 salaadood waan tukaday intii kale xagee ku baxday maxaa ii kordhay aakhiradaydii maxaan dhisay maxaan dambi iga dhacay haddaad si fiican u xisaabtanto habeen walba markaad seexanayso waxaad garan lahayd aroorta dambe waxaad ku kaakacayso iyo meeshaad u kacayso waayo cimrigu waa wax yar naf iyo shaytaan baa ku odhanaya waa wakhti badan baa ku hodhay iska noolow waa maalmo qofka imika 5 jirka maraya ka 6 jirka maraya labaduba nolosha way la yarta way gebigeeda maalmo ah maalmahaasi waxay u baahan yihiin inaad si wanaagsan ugu xisaabtantid wixii kaa tagay waxa kuu hadhay inaad isweydiiso warta caawa hadday baxdaba soo noqon weydo maxaa kala ah ilaan ilaahay baa quraanka wuxuu ku leeyahay nafta markay jiifsato waan qabanaaba ilaahay yidhi dabeetana waxaa la yidhi tii wakhtigee wax u hadhayna waa la soo daayaa tii kalena waa la hayaa inay adiga talahaynaya tahay iyo inay tala soo daynayo tahay ma kala hogtid ha iskaga talagelin inaad aroorta soo kici doonto in badan baa intay seexataan aroortii dib u soo toosin wax waliba way dhici karaa sidaadaad isaga baktiyi kartaa sidaadaa gurigu kuugu dubi karaa sidaadaa xabad seeraaro meelaha ka soo dhacda kugu dhici kartaa sidaadaa danab dusha kaga dhici karaa gurigiinna sidaaday wax waliba waa dubi karaa sidaadaad isaga dhiman kartaa idan waxaa inaad ku xisaabtantaa warta caawa hadday dhammaato taadii maxaa kaa horeeya qofku hadduu muraaqaba samaynayo
oo wax kasta uu samaynayo uu ilaahay ka dhex arkayo subxaanahu wa tacaala, hadduu xisaabtamayo oo noloshiisao dhan xisaabinayo, hadduu dadaalayo oo uu leeyahay arday markaa aad wax dhiganayso sanad walba waxaad is leedahay shahaada soo qaata, shahaada yaraad sheegaysaa waa maxay? waxaad ku xisaabtamaysaa waxa 4 sanaa soo dhameey, 5 sanaa soo dhameey, 12 sanaa soo dhameey, 4 jaamacadaan soo dhameey, waxaad xisaabinaysaa wixii aad dhamaysay. qofka muslimka waa inuu ku xisaabtamo war naftan intaad korisay. sanadkii hore 5 salaadood unbay tukan jirtay, imika halkay maraysaa? ma ku dartay sunankii oo dhan? sanadkii hore sunanka rawaatibta iyabay ka adkayd iyo salaadaha imika tahajudkii ma raacisay sanadka dambe? waa inaad xisaabtantaa, waa inaad isweydiisaa war ramadaan tan soo socota maxaan kordhin doonaa talow, maxaan ku kordhiyaa nafta? waa in shahaadada kuu kordhaa, aad aakhira ilaahay la hor tagtid oo tidhaha ilahu inta baan adiga dartaa u soo sameeyey. shahaadadii iskuulka waa inaan laga fekerin, iyo kalaaskan ka soo gudubtay kalaaska kale aad gelaysaa keebuya, waa inaad ka fekertaa aakhirana sanadaasi tagtay sanada dambe waxaad biirinayso. idan waxaan leenahay tarbiyatu nafs. 2 shay haddaa ka adkaataan naftiinnu way kobcaysaa. kow, aqoon ahaan inaad korodhid oo isku daydid waxa ilaahay kaa doonayo o dhan inaad fahamtid oo garatid. 2, dhaqan ahaan inaad korodhid oo isku daydid shalaydaada iyo maantaadu inaanu isku mid kuu noqonin. shalay halkii aad joogtay inaad ku tala gasho maanta inaad ka ruqaansato, hore uga sikatid, hore uga dheeraysid oo aanad halkii shalay joogin. hadduu qofka muslimkii sidaa uu fakerayo oo horumarka uu ku fakerayo uu guulaysanayo.